السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan filayaa caaqil waqti wada gobo in badan wada soo hadiyay ayaa markaa labada soo gudbiyay aad iyo aad ugu faraxsanahay waxa weeyaan horta wadanimo ku kala qaadaya wax wada ku saabsan in dadka reer ay yimaadaan ka soo qayb galaan waayo waxa weeyaan qanqanaha ruuxan mucaaradadu way caqabad qabtaa oo dad aan mucaarad lahayn meel ma gaaro waxa weeyaan qanqana markay mucaaradku bilaa joogteen noqdana isaga xukuumadda qabsanaya intaa horena waa inuu muujiyaa wixii dowladda magarasa isbedelaha iyo meeshii waxaa jirana xaddi qoraan tareega fatijoorka lagu qabtaa kolkaa aad iyo aad u wanaagsan yihiin bulshada sharafka loo taqaday ee kushaqeynaa way wanaagsan yihiin siyaasadana halkan dheer baa loo soo maray maalintan qiimaha le ee maanta waxa weeyaan dadna way hami keliya dadna magarasa loo ogahay oo gurigii anigu digay waa noolaa deetana gudigeerka gurigeyni wadna administras dhinaceega kale ka fogeeyey kolkaa waktigaasi waxay ahayd maalintii sida loo arkay in layska dhaafo ayay noqotay oo waddanka gudihiisa magaranaysaa wax qiimo oo ay ku leedahay imkaa ma jirto laakiinse dibadaha waa la xasuusan karaa run ahaantii waxyaalaha loo soo dhigay halkan ay mataqaana maanta ciidamada qabata xasan iyo xuseenka arrimaha ay soo ururiyeen ee taariikhiga ay halkan naga tuseen horta waxa weeyaan wax aad iyo aad ku xasuusinaya wixii hore jiray kuwaas waddankaba run ahaana inaa la arko waajib ku abeed si dhigeerna kuwii soo helida si adag ku soo yahay kolkaa in maalintaasi dadkii siligii aan garanayo anigu aana nool anana ka daawaday magaranaysaay wejiyadii yaryaraa waktiga ah oo maanta weligeeyey oonana ka daawaday waxay noqotay tu aad iyo aad aanigi radigay kolkaa run ahaantii khudbadaha halkan ka baxay amase laynoo soo jeediyeyna waxa weeya khudbado aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad u cajabiyey isbedelkuna si uu ku yimaadaba kulliga wuu fiican tahay iyada oo hadi goraal nabadgelyada iyo mataqaanaa jiritaanka waddankeena aanu ilaalinayno ilaa waktigaa waxa soo gaarsiiyey odayaal baa soo gaarsiiyey maanta burburkii dalkii soomaaliyeed burburay waan ka hadhnay nasiib baa ku leenay waa halka quraateen maanta jirta magaranaysaa maanta nabad lagu seexanayo intaasi waa ilaahay mahadii wixii kalena uu iska iman doonaa waxaan filayaa ubaxa maanta soo kacaya ee barkoodi nala hadlayaan inay awoodi doonaan fikrada dadka mideeya oo mataqaanaa ninka soo reer joogtiy oo mataqaanaa uu meedheer ku gaaray kolkaa waxaan leeyahay caasim iyo mahdi iyo xisbiga kale beerdeedaba soo dhawaada insha allahu markaad tartaanna noo qaale waxaan kaloo mahadnaqayaa dadkii soo qabankaabiyey maanta arrinta sharaf kale aad iyo aad u wanaagsan reer Djibouti iyagana waa mahadnaqayaa iyagoo maanta laba qofa laakiinse halkan Ottawa reer Djibouti way ka buuxaan waxaan filayay intan tobankeedina la yimaado ilaahay diinta dadka ku sameeyay meel la joogo soo ay joogto kolkaa waxaan filayaa mataqaanaa iyaguna inay hurdada ka soo toosaan kolkaa waa